maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa doornimadii maanta booqasho lama filaan ahayd waxa uu ku tagay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu Villa Soomaaliya kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo labada mas'uul ay xaaladda iska wareysteen. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku amaanay madaxweynihii hore ee dalka waxqabadkiisii 4 sano ee la soo dhaafay ee uu kaga howlgalay qasriga Villa Soomaaliya. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu madaxtooyada ku dhex booqday askar ku waxyeelooday weerarada shabaabku ay ka wadaan magaalada Muqdisho. askartan oo qaarkood ku naafoobay qaraxyada shabaabka ayaa xoghayntiisa waxa uu ku amray in magacyada askartaasi ay u soo qoraan. madaxweynaha ayaa waxa la soo sheegay in Villa Soomaaliya uu ku gaaray isagoo lugeynaya waxaana tilaabadan lagu micneeyay mid uu ku doonayo inuu ku dhex galo bulshada Soomaaliyeed. intii oo kormeerkiisa ku guda jiray madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ammaankiisa sugayay ciidamada kumaandoonka Soomaaliya ee dana mana jirin askar ka tirsan AMISOM oo la socotay Farmaajo xilligii booqashada uu ku tagay Villa Soomaaliya. maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya ayaa waxa maalmaha soo socda lagu wadaa inuu si rasmi ah ula wareego xafiiska madaxtooyada. Got it.